Saamaynta militariga dalka Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad loo dareemaya waxaana ugu dambeeyay ciidanka dalka Turkiga oo u diray gudaha wadanka Liibiya iyo kuwii ka sii horeeyay howlgalka ka fuliya waqooyiga dalka Syria. Turkiga oo sidoo kale ka mid ah gaashaanbuurta NATO ayaa saldhig aad u ballaaran ku leh magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. wargeyska lagu magacaabo The Global Firepower oo ka mid ah kuwa wax ka qora arrimaha militariga caalamka ayaa waxa uu ku qiimeeyay dalkaasi Turkiga in ciidankiisu ay yihiin kuwa xilligan ugu awooda badan marka loo eego bariga dhexe. ciidanka dalka Turkiga ayaa kaalinta sagaalaad ka galay qiimeyn lagu sameeyay awoodda militari ee dalalka caalamka oo gaaraya 137 wadan waxaana sanadkiiba la sheegay in ciidanka dalkaasi Turkiga ay ku baxdo lacag miisaaniyad ahaan gaaraysa 8 bilyan oo dollarka Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa sanadihii dambe xooga saartay maalgelinta ciidanka kadib afgembigii dhicisoobay sanadkii 2016 waxaana xukuumadda Ankara ay xiriir militari oo dhow ay la yeelatay dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Qatar iyo Soomaaliya oo ay ku leedahay saldhigga ugu weyn ee ku yaala meel ka baxsan dalkaasi Turkiga. sidoo kale dalka Turkiga ayaa sida uu qoray wargeyska The Global Firepower waxa uu ku tilmaamay dalka ugu awooda badan xilligan bariga dhexe waxaana uu ka awood badan yahay marka loo eego dalal caalamka ay si weyn indhaha u hayaan oo ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga, Masar, Iran, Israel, Pakistan, Australia, Canada iyo Saudi Arabia waxaana uu awood ahaan ku xigaa marka la eego xagga militariga dalka Ingiriiska. bal aynu eegno awoodda ciidanka Turkiga ee xagga cirka iyo waliba waxyaabaha xilliga ciidamadaasi ay ku hubeysan yihiin. dalka Turkiga ay ku nool yihiin dad gaaraya 80 milyan oo qof dadka shaqeeya ayaa waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 42 milyan oo qof waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradooda wargeyskaasi uu ku sheegay 735,000 oo askari. ciidanka sida tooska u dagaal gali kara ee dalka Turkiga ayay jariirada The Global Firepower waxay ku qiyaastay 355,000 oo askari halka ciidanka heeganka ah ama kaydka ku jira ay gaarayaan 380,000 oo askari. taasi waxay muujinaysaa cududda dalka Turkiga uu leeyahay isla markaana caalamka uu iminka indhaha ku hayo. Turkiga ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa sanadihii ugu dambeysay ciidankiisa iyo awoodiisa militari aad u kobcisay. Turkiga ayaa wargeyska Global Firepower ku sheegay inay ka mid yihiin 10 dowladood ee ugu awooda badan xilligan caalamka waxaana diyaaradaha ciidanka dalkaasi lagu sheegay tiro ahaan inay gaarayaan marka la isku geeyo 1,067 diyaaradood kuwaasoo isugu jira noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Turkiga ayaa tiradooda waxay gaaraysaa 207 diyaaradood halka kuwa wax duqeeya iyaguna ay gaarayaan 207 kale. diyaaradaha xamuulka ee militariga Turkiga ayaa gaaraya 87 diyaaradood halka kuwa lagu tababaro ciidamada cirka ay gaarayaan 289 diyaaradood oo iminka si weyn loogu tababarayo duureyaal dhalinyaro ah oo aaminay dalkooda isla markaana heegan uga jira sidii ay uga difaaci lahaayeen cid kasta oo ku soo gardaroota. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterska ee militariga Turkiga ay hadda haystaan ayaa tiradooda waxay dhan tahay 792 diyaaradood waxaana 94 ka mid ah yihiin kuwa wax duqeeya ee weerarada hadda loo adeegsado. sidoo kale Turkiga ayaa dhowaan dalka Ruushka ka soo iibsaday gantaalaha difaaca cirka ee loo yaqaano S-400 kuwaas uu farsameeyo Ruushka isla markaana farsamadoodu ay tahay mid aad u heer sareysa oo caalamka iminka ay ka mid yihiin gantaaladaasi kuwa aad looga baqo. haddii aan sidoo kale eego ciidamada dhulka ee Turkiga ayaa awoodda xilligan ay leeyihiin iyo sidoo kale qalabka ay ku gaashaaman yihiin ayaa wargeyskan waxa uu sheegay ciidanka dhulka ee militariga Turkiga ayaa kaalinta 7aad waxa ay ka galayaan ciidamada ugu awooda badan ee caalamka xilligan infantry loo adeegsado.
taangiyada dagaalka ee Turkiga ayaa gaaraya 3,200 oo taangi, halka baabuurta gaashaaman ee dagaalkuna ay gaarayaan 9,500 oo gawaari. ciidanka Turkiga ayaa sidoo kale leh madaafiicda goobta ee loo yaqaan artilleriga oo gaaraya 1,120,350 madfac oo ah hubka Soomaalida ay u taqaana BM-ka iyo noocyada kale oo ah madaafiic casri ah kuwaasi oo iskood u dagaal keli kara. sidoo kale ciidamada Turkiga intaasi kuma eka waxay leeyihiin ciidamada badda oo sidoo kale ku qalabaysan hubka noocyadooda kala duwan iyo gaadiidka badda intaba. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa toddobaad ka hor daaha ka rogay gujiskii ugu horeeyay ee lagu farsameeyo gudaha wadankaasi, waxaana uu sheegay in kuwo kale oo badan ay ka shaqeyn doonaan sidii loo sameyn lahaa. ciidamada badda Turkiga ayaa leh 34 markab oo lagu ilaaliyo xeebaha dalkaasi, 12 gujis iyo 16 maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale 11 maraakiibta ka hortaga miinooyinka lagu aaso badda hoostooda. ciidanka badda ee Turkiga ayaa sidoo kale leh markabka loogu magac daray Peninsula of Anatolia, kaasi oo ah markab xambaara diyaaradaha dagaalka. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in marka la gaaro sanadka 2022 ay si toos ah u howlgelin doonaan gujiska lagu farsameeyo gudaha wadankaasi Turkiga. gujiskan ayaa awood u yeelan doona inuu ka howlgalo meelo fogfog oo ka baxsan weliba Turkiga, kaasi oo si farsamaysan ay u adeegsan doonaan ciidamada dalkaasi. Global Firepower wargeyskaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay 10 dal ee military ahaan caalamka ugu awooda badan, waxaana ay kala yihiin Mareykanka oo kaalinta koowaad galaya, Ruushka oo ku xiga, Shiinaha oo booska saddexaad fadhiya, Hindiya oo 4 gashay, Faransiiska oo 5 joogta, Japan oo 6 galay, Kuuriyada Koonfureed oo 7 fadhisa, Britain oo kaalinta 8aad ciriirsatay, Turkiga oo 9 ku jira, halka Jarmalkana uu buuxiyo kaalinta 10aad. hadda caalamka waxa uu muuqanayaa mid dal kasta uu dhisayo cududiisa military iyadoo isku hubeynayo agabkii ugu dambeeyay ee militariga, isla markaana isku hubeynayo gantaalihii iyo hubkii ugu dambeeyay caalamka. hase yeeshee dowladda Mareykanka iyo Turkiga ayaa waayidii ugu dambeysay aragti ahaan aan isku siyaasad ahayn, walow Ruushka iyo Turkiga ay isku dhawaanayeen. waxaana xusid mudan Turkiga iyo Mareykanku inay ka wada tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO. daawadayaal, intaasi waxaynu ku soo koobaynaa warbixintii wargeyska Global Firepower oo ku qoray awoodda sii kordhaysa ee wadanka Turkiga ee dalal fara badan oo caalamka indhaha ku hayaan, iyadoo awooddaasi ay xusid mudan tahay in ciidamadu ay gaareen intii talada uu hayay Rajab Tayyip Erdogan oo dalal fara badan oo islaam ay ku naaloonayaan awoodda uu gaarsiiyo dalkaasi. Turkiga ayaa waayidii ugu dambeysay waxa uu si weyn isbahaysi ula sameysanayay dalal ka mid ah kuwa dunida islaamka, walow Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka iyo dalal ku yaala Khaliijka iyo sidoo kale Masar oo saaxiib la ah dalalkaasi ay si weyn uga soo horjeedeen Turkiga iyo siyaasadda fadhisa ee Rajab Tayyip Erdogan uu ku hogaaminayay. inkasta oo Turkiga iminka uu si weyn ciidamadiisa u qalabeynayo, dhinaca kale waxa uu wajahayay hagardaamooyin uga imaanaya dalal ku yaala caalamka islaamka iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Jarmalka iyo sidoo kale Mareykanka oo dhankoodana xulufo ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintaasi, waxaadna ka daawanayseen janalka Wacaal Media oo idiin soo gudbin doona sheekooyin ku saleysan wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo sidoo kale wararka la xiriira militariga, sirdoonka iyo weliba waxyaabihii ugu dambeeyay ee qorayaan warbaahinta dunida. fadlan ku soo biir janaalka adigoo taabanaya subscribe. waad mahadsantahay.